maanta asaga marti loo wada noqdo aniguna maanta martidiisa aan ka mid noqdo berina uu nasto oo weli taliyanimo ku nasto sabtidana uu taliyanimo ku shaqeeyo axadana iska keeno midda kale waxa weeye aniga asaga waa la isku haya dhiibayo hadda waaba isku wareeraynaaba bashiir xashad marka hadda wuxuu degan yahay ciidanka asluubta xarunta wuxuu degan yahay oo xabsiga dhexe inaan guri kale u raadiyo waay haddii kale gurigu ka soo toosaa dhowr bilood ka bacdi culaaya way karaan intaas oo salaad iyo muxuu ahaa kaftan haddaan sheego aniga maanta khudbad akrinayo muxuu ahaa aragtidayda iyo visionka aan rabo muxuu ahaa termka labaad ama muxuu ahaa muddada labaad ee xilkan la ii magacaabay waxaan ka sheegi doonaa insha Allah taala xafladda xil wareejinta waxaan kaliyo hadda leeyahay waxaan u hambaleynayaa taliyaha sareegaas Xuseen Xasan Cusmaan anigoo hadda waxba ammaantiisa ku dheeraan maayo meesha xafladda ka sheegi doonaa ilbaana macalina meeshaan ayagoo tarniigahan ka tagay maantana waa u jeednaa sida ay tahay marka qofka aan waxa walaalkiis kaga horeeyay meesha uu qabtay aan qirina dadba ma ahan dadnimadiisa xun qofkaas oo kale wax badan baa qarsoomay intaan maasaalkii bilood ama 10kii bilood oo waqtiguna aad ugu yaraa waliba taas waxaan uga hadli doonaa oo ku faahfaahin doonaa insha Allah taala xafladda xil wareejinta aynu ku wada hadli doono waxaan raba kaliya hadda inaan ku soo gunaano warkayga inaad hambaliyo inaan u diro taliyaha laftigiisa General Xuseen Xasan Cusmaan taliye ku xigeenada General Cabdikariin iyo General Cilmi dhammaan sareeyaasha ciidanka saraakiisha sare saraakiisha kormeerayaasha saraakiil xigeenka dableyda xaasaskooda iyo qoysaskooda iyo ilmahoodaba waxaan leeyahay sanadka xiga guul baraare iyo barwaaqo iyo nabad ilaahay uu gaarsiiyo ilaahayna ha noo kaso inoo sidaan ka amni fiican ka dhismo fiican ka qurux badan ka caafimaad badan ilaahay soo keeno ka maarana in xoog dalka Soomaaliyeed oo xuduudaha inay aadaan ay maanta magaalada dhexdeeda inagu ilaaliyaan maantana waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidanka booliiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabadsuuda Soomaaliyeedba warayska ay saareen ilaa xalayto ilaa iyo maanta halkaana maanta ilaahay inoo ogolaaday oo inagu suurto galiyay ayaga shaqada ay noo hayaan oo ilaa ay dhowr iyo 10 kilomitir halkaan ka fogaatay ciidamada taliyahoodii iyo abaanduulahoodii ay halkaan inala fadhiyaan ayaguna halkaas inaga ilaalinayaan oo bacadka iyo qoraxda inoo taagan walaalo jira waa mahadsantihiin sidoo kale ciidanka booliiska oo ilaa ay xalay seexan oo u taagan dariiqyada hawshan anagu maanta ku jirnay xafladeynteen ciidanka nabadsuuda Soomaaliyeed oo sidii si ay qabanaya kulligiin waa mahadsantihiin khayr iyo xasanaad Allah idinka siiyo waana waxaan ku leenahay annaguna markay iyaga wada kala qayb gali doonaa ciidanka asluubta Soomaaliyeedna waa ciidamada qalabka sida ciidan kamid ah difaaca dalka ka qayb gala amniga ka qayb gala dhammaan hadda ciidankeenu wuxuu diyaar u yahay oo soo sii diyaarin doona inuu dhammaan idin kala qayb qaato difaaca iyo amniga waa mahadsantihiin